waxaad dhahday suuradda laati koowaad aayadda laati labaad. waa suuradda laati koowaad aayadda laati labaad. cadceedda wareeganaysa miya? maya suuradda lixaad sida aan aaminsanahay, balse suuradda labaatan koowaad aayadda labaatan labaad waxaa lagu sheegay maamulidda allah ee koonka. sayniska ay ka soo horjeeda marka lagu eego adiga. walaalka su'aal buu na weydiiyey, wuxuu sheegay inuu akhriyay Bible-ka, wuxuu soo qaatay dhowr faqro kamid ah Bible-ka iyo aayado Quraanka kamid ah, nambarkoodana uusan sixin. wuxuu sheegay Bible-ku inuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray maalinka iyo habeenka maalintii ugu horeysay. taa wuxuu ka soo qaatay Book of Genesis chapter-ka koowaad faqrada 3. wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala maalinka iyo habeenka ayuu abuuray maalintii ugu horeysay. haddaad akhriso sidoo kale Book of Genesis chapter-ka koowaad faqrada 13 ilaa 19 waxay sheegaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala abuuray cadceedda maalintii afraad. meelaha aad ka heli karta ayaan ku sheegayaa. arrintaasi soo sayniska kama soo horjeedo. waan kugu waafaqsana sayniska ka soo horjeeda. waxaa jirtay dood aan la galay Dr. William Campbell Mareykanka. Dr. William Campbell waa Christian Fafiye, waa dhakhtar Mareykana. PhD ayuu ku qaatay kitaabkiisa uga soo horjeeday Quraanka. doodaasi Quraanka iyo Bible-ka marka loo bandhigo sayniska, su'aashaasi ayaan weydiiyay wuuna ka jawaabi kari waayay. marka waan kugu waafaqsanahay in arrintaas ay tahay mushkil ka jirta Bible-ka. su'aashadan u maanayna oo ah in Quraanku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala koonka ayuu maamulayaa. marka loo eego Bible-ka waan kugu waafaqsanahay inuu ka soo horjeedo xaqiiqooyinka la sugay. balse marka loo fiirsho su'aashaada ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu maamulayaa koonka, soo ma aadan dhihin cadceedda wareeganaysa. cadceeddu dhulka ayay ku wareegaysaa. arrintaas waa waxaan maqlay. sidaa darteed waxaan kaa dalbay inaad ku celiso. waxaad u celin weysay. waan maqlay. masdarkan ayuu sheegay suuradda laati koowaad aayadda laati labaad. waa marjic qalad. waan ku sheegayaa walaal. waan ku sheegayaa. marjica saxda waa suuratul anbiyaa suuradda laati koowaad aayadda 33 ee ma aha laati 2. waa kana Quraanka. taas waxaan kaaga sheegayaa xifdigayga. anigu computer maahi. jawaabta ayaan ku siinayaa walaal. marka kadib haddii aad qabto codsi dhib male walaalkay. walaal adiga waad i weydiiday iida marka aan ku jawaabay. markaan jawaabteeda ka dhamaado 20 kale su'aalaad weydiin kartaa. balse su'aalaad i weydiiday si wanaagsan ayaan kuu dhageysanayay. hadda aniga jawaabteeda dhageyso. marka aan dhameeyana su'aal kale weydii. waqti kugu filan ayaan ku sii doonaa. madaxa fadhigan inuu arrinta diidaa laga yaabaa, laakiin anaa ka codsan doonana waqti. maxaa yeelay adigu waxaad ku faraxsan tahay imaashahaaga halkan. annaguna aad ayaan ugu faraxsanahay joogitaankaaga halkan. walaalku wuxuu yiri Quraanku wuxuu ku leeyahay suuratul anbiyaa suuradda laati koowaad aayadda laati labaad mana aha 22 ee waa 33 in cadceeddu wareeganayso. aayaddu soo qatana waa aayadda 33 ee kamid ah suuratul anbiyaa suuradda laati koowaad. midaas oo leh wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahaara. allah waa kan abuuray habeenka iyo maalinta. wash-shamsa wal-qamara cadceedda iyo dayaxa kullun fi falakin yasbahuun. mid kastana falag ayuu dhex dabaalanaya. qaladkaasi oo kale waxa uu ka dhacay Tasliima Nasriin. ma maqasho Tasliima Nasriin? waa Bangladesh. waxay tiri haddii kitaab rumaysan yahay in qorraxdu ku wareeganayso gaararka dhulka, sidee suurtagal noogu tahay inaan hormarno? waa waajib in Quraanka la bedelo. nacuudu billaah. mushkiladdu waxay tahay ayada ayay waajib tahay in ay Quraanka u akhriso si sax ah. Quraanku wuxuu leeyahay walladhi khalaqa al-layla wan-nahaara. allah waa kan abuuray maalinka iyo habeenka. wash-shamsa wal-qamara cadceedda iyo dayaxa kullun fi falakin yasbahuun. mid kastana falag ayuu dhex dabaalanaya. laguma sheegin Quraanka weligii in qorraxdu ku wareeganayso gaararka dhulka. ma jirto. Quraanku wuxuu sheegay arinta Quraanku sheegay waxa weeye in qorraxda iyo dayaxu booskooda ay ku wareeganayaan, waa makaankooda. aslan bay ereyga dhulku ma soo arorin aayadda. waa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahaara. allah waa kan abuuray maalinka iyo habeenka. wash-shamsa wal-qamar cadceedda iyo dayaxa kullun fi falakin yasbahuun. mid kastana falag buu dhex dabaalanaya. markaan dhiganayay iskuulka waxayna baran qorraxdu inay sugan tahay oo aysan booskeedii makaankeeda ku wareegaysanayn. koonka ayay ku wareeganaysaa. nidaamka qorraxdu dhammaantii wuu wareeganaya. balse markaan ka qalin jabiyay iskuulka 1982 waxaan soo bartay qorraxdu inay sugan tahay oo aysan booskeeda ku wareegaysanayn. laakiin aayaddan Quraanka kamid ah waxay leedahay ereyga yasbahuun. waxaa laga keenay ereyga sabaxa, waxayna tilmaamaysaa dhaqaaqa uu sameeyo jirka qof nool. haddii loo adeegsado ereyga sabaxa qof dhulka dul jooga, macnaheedu maahan inuu wareegayo, balse macnaheedu waxa weeye inuu soconayo ama ordayo. haddii ereygan loo adeegsado qof biyaha ku dhex jira, macnaheedu maahan inuu sabaynayo, balse macnaheedu waxa weeye inuu dabaalanayo. haddaba marka Allah subhanahu wa ta'ala ereygan u adeegsado qayb kamid ah samada, macnaheedu maahan inay biibayso, macnaheedu waa inay ku wareegaysanayso booskeeda. haddaba Quraanku wuxuu leeyahay cadceedda iyo dayaxa iyagoo booskooda ku wareegaysanaya makaankooda halkooda ayay ku wareegaysanayaan. balse iskuulka waxaan ku soo bartay qorraxdu inaysan wareegaynin. maanta saynisku waa hormaray. waxaana heli karnaa sawirka sadxiga qorraxda. waxaana arki karnaa camad madow oo qorraxda ku dul yaal. samad madow waxay qaadanayaan ku dhawaad 25 maalin si ay u dhameystiranto hal wareeg oo kaamil ah. in cadceeddu ay qaadanayso ku dhawaad 25 maalin si ay u dhameystiranto hal wareeg oo booskooda ku wareegto. sidaa darteed saynisku wuxuu noo sheegayaa wixii aan ka baranay iskuulka 1982 inuu ahaa qalad. Quraankuna nooma sheegin arrintaasi kaliya 20 sano ka hor. wuxuu noo sheegay 1400 sano. waxaan iskuulka ka bartay waxay ahaayeen 20 sano ka hor.
qur-aanku wuxuu leeyahay waxaad barata waa qalad markii hore waan la yaabay balse dib ayaan ka ogaaday qur-aanku inuusan qaldaneen qur-aanku ma qaldana buuggayga sayniska ayaa qaldanaa balse tasliima nasriin ma aqaan sida aayaddu dhex gelisa ereyga dhul ma garanaayo ma carabigay taqaanaa ma ingiriishka akhrin kartaa xitaa tarjumadda ingiriishka sidaas ma oran waa waxay ka soo qaaday oo kaliya qur-aanku markuu leeyahay way wareegaysaa ujeedo waxay ku wareegaysaa gaararkaas waa mala awaal oo kaliya mala awaalkeeduna waa qaldan yahay balse qur-aanka alxamdulilah ma qaldana waan kugu waafaqsana sidoo kale in Allah subhanahu wa ta'ala maamulayo koonka waana arintaasi sababta marka la waafajiyay Francis Bacon filosoofkii weynaa wuxuu yiri sayniska aadka u yar wuxuu ka yeelayaa diin laawe balse cilmiga iyo sayniska aadka u ballaaran ka yeelayaa mid rumaysan hal ilaahu kaliya waxaan rajaynaynaa su'aashaada ka jawaab haddaad wax su'aal qabto waan ku soo dhaweynaynaa walaal haddaad qabto wax su'aal oo naga soo horjeeda waan ku soo dhaweynaynaa waan ku jecelnahay mudane aniga ma hubo nambarka aayadda wax dhiba male aniga kaama soo horjeesan waan ku saxay oo kaliya haddaad bixisay nambar qalad oo sax ahayn waxa igu waajib inaan saxo aniga kuma dhihin waa waajib inaad dusha ka xifdido adiga computer ma tid anigana computer maahi balse waxaan u malaynaa in lagu sheegay suuradda 8aad in qorraxdu dhulka ku wareegayso arintaas quraanka laguma sheegin waxa soo qaadatay waxa weeye suuratul anbiya suuradda 1 aayadda 33 waana arintay soo qaadatay tasliima nasrin iyo boqolaal kale oo islaamka ka soo horjeeda laguma sheegin suuradda anfaal waa suuradda 8aad xitaa quraanka laguma sheegin in cadceedu gaararka dhulka ku wareeganayso maxamada ugu dhaw ee arintaasi ka dhalan karto adiga ku haysato waxa weeye inaadan garanaynin luqadda carabiga ama aadan garanaynin tarjumada saxda suuratul anbiya suuradda 1 aayadda 33 soo qaadashadaadii hore aad ay u dhaweyd wuxuu ahaa 11 aayad oo kaliya suuradda waa sax 1 balse aayaddu maaha 22 ee waa 33 waa saas quraanka maya waa suuradda 1 aayadda 22 Allah wuxuu maamulayaa koonka Allah koonka ayuu maamulayaa sayniskuna ma gaarin darajo uu wax kaaga sheego xaqiiqada ku saabsan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan jeediyay muxaadaro quraanku ma hadalkii Allah oo si cilmiyeysan ku sugay jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala walaalaha mutadawwicinta waxaan ka dalbanayaa in hal canjal video oo muxaadaradaasi ah haysiiyaan walaal ashraf ayaan ka codsanayaa inuu canjalkaas walaalaha ka dalbo waxaan ku hadiyin doonaa canjal video ah quraanku ma hadalkii Allah halkaasna waxaan ku sheegay dhowr xaqiiqo cilmi ah si caqliyeysan oo cilmiyeysan waxaan ku sugay jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala maanta saynisyahanada ugu waaweyn ma inkarayaan jiritaanka Allah subhanahu wa ta'ala balse waxay inkarayaan waxyaabaha ilaah loo ekeysiyay la ilaaha ma inkarayaan ilaah balse waxay inkarayaan sanamyada la ilaaha illa Allah haddaba maanta saynisyahanada ugu badan waxay rumaysan yihiin jiritaanka Allah laga yaabay qaarkood inuu dhumay balse badankood waxay rumaysan yihiin jiritaanka khaaliq ama abuure midda ku saabsan abuuritaanka koonka maanta saynisku wuxuu noo sheegayaa qaabkii loo abuuray koonka sidee qaraxi weyna sax hagaag qaraxi weyna saynisyahanada maanta waxay noo sheegayaan in bilowgii hore koonku uu ahaa walax aad weyn kadibna waxa dhacay kala bixi qaraxi weyna markaas ay sameysmeen galaksiyada xidigaha meerayaasha cadceeda dayaxa iyo dhulka aan ku dul noolnahay taasi waa aragtida qaraxi weyna kormeed ogaata aragtida qaraxa weyn 20 sano tagtay 30 sano 40 sano sax ha alla wuxuu ku leeyahay quraanka suuratul anbiya suuradda 1 aayadda 30 waa 1400 sano tagtay Allah wuxuu leeyahay miyayna arkin kuwii gaaloobay in samooyinka iyo dhulku ahaayeen kuwa isku dhagan oo aan kala bixinay anna samaawaati wal arda in samooyinka iyo dhulku ahaayeen isku dhagan oo aan kala bixinay haddaba alla wuxuu leeyahay samooyinka iyo dhulku waxay ahaayeen kuwa midaysan oo isku dhagan kadibna waan kala bixinay qaraxa weyn ee saynisyahanadu maanta ka sheekeynayaan waxa lagu sheegay quraanka 1400 sano ka hor yaa awood inuu arintaas quraanka ku sheego xilligaasi uu saynisku hormarin waa abuuraha isla sidaasi muxaadaro kaamil ayaan arintaasi ka sameeyay waad u noqon kartaa quraanka iyo sayniska iyo quraanku ma hadalkii Allah insha Allah haddaad ku daawato caqli furan waxaad ku qanci doontaa inuu jiro hal ilaah oo kaliya oo ah kan abuuray